waxaynu ku bilaabaynaa dowladda Kuwait ayaa maanta sheegtay in weerar lagu soo qaaday. yaa soo weeraray Kuwait, yaa daba socda, yaa weerarka ku qaaday ilaa hadda lama yaqaano. waxay leedahay saakay ilaa duhurkii diyaarada droonisa nafta noo keenay oo weerar nagu soo qaaday. haddaba marka laba arrin ayaa meesha ka soo baxaysa. yaa soo weeraray Kuwait, yaa se weerari karaa. haddaba wararka qaar waxay leeyihiin kow waxaa laga yaabaa inay awlaadda Iiraan soo weerareen oo ay ka mid yihiin kuwa Ciraaq jooga inay weerarka qayb ka noqdeen maadaama Kuwait iyo Ciraaq ay daris yihiin halkaas weerarada looga qaaday. dhanka kale dad kale ayaa waxay qabaan Israa'iil oo iyadu ka soo horjeeda marnaba dagaalkan waxa kan in la joojiyo foodooda inay sii socoto rabta inay iyadu ku lug leedahay sidii awalba Iiraan ay ugu eedeysay dhowr jeer hore oo ay tiri Israa'iil ka dambeysay weerar lagu qaaday dowladaha Khaliijka. haddaba marka xaalka lama yaqaano laakiin sida ay hadda sheekadu marayso ayaynu barnaamijka ku bilaabaynaa. haddaba wargeyska la yiraahdo Sharqul Awsad ayaa sheegay in dowladda Kuwait ay sheegtay inay la tacaamulayso oo ay markaa la dirirayso diyaarado droonisa oo cadawgu ay leeyihiin kuwaasoo ay sheegtay inay soo galeen hawada dalkeeda maanta. haddaba wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray waxaa la leeyahay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Kuwait ayaa saakay oo axada waxay sheegtay in ciidamadu ay markaa la tacaamulayaan oo ay la dirirayaan tiro ka tirsan diyaaradaha drooniska ee cadawga kuwaasoo la sheegay inay soo galeen hawada dalka Kuwait. haddaba wararkii ugu dambeeyay Kuwait waxa ay sheegayaan in diyaaradahaasu ay dhowr yihiin oo markaa ay weerar ku soo qaadeen. haddaba afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Kuwait ninka la yiraahdo General Rukni Saud Abdelaziz Cadwan ayaa sheegay in ciidamadoodu ay la dagaaleen oo markaa ay ka hortageen si loo ilaaliyo amniga waddanka iyo nabadgelyada dadka muwaadiniinta ah iyo dadka kale ee ku nool dalka Kuwait. way laftirkooda marka ma sheegayaan meesha weerarku kaga yimid. marka yaa soo weeraray lama yaqaan, waana la soo weerarayay, waa diyaaradaha maartay hawadeena soo galay, waa kuwaasay ku hayaan, waa Kuwait. marka iyadu maxay tahay? Kuwait waxay ka mid tahay dowladaha Khaliijka, waana dowlad yar, waana dowladda ugu dhibaatada badan dagaalka Iiraan u saameeyay. ayada Iiraaniyiintu iskuma fiicna siyaasad ahaan, markaba ay leedahayna meesha ma gudbi karo. xaalku marka waa ku xun yahay. iyagu waxaa leeyahay bishii Abriil oo dhan hal markab oo shidaal wada xataa ma gudbin. kuwa kale basar iyo waxbay ku marsadaan dowladaha kale Khaliijka, Iiraan iyo waxbay iskala macaamilaan. marka qoladan marka dhibaato gooniya iyagu halkaa ka haysataa la leeyahay. qodobka halkaasaa kaga gudbaynaa. qodobka labaad, Qatar waxay sheegtay markabkii ugu horreeyay ee gaas wada oo ay Qatar leedahay inuu ka gudbay maanta Hormuz. u fiirsada, tan iyo markii dagaalku u dhacay Hormuz la xiray, dowladda Qatar gaaskii ugu horreeyay ay dibadda u iibgeyso waa markii ugu horreysay markab weyn oo gaas tiro badan wada oo dowladda Qatar ay leedahay inuu Hormuz ka gudbo. marka sheekada meesha taag waxay tahay mi iska gudbay marka maya iskama gudbin. shaqo badanaa la qabtay. wasiirka arrimaha dibadda telefono kula xiriir Iiraaniyiinta, Maraykanka u tagay, Maraykanka la hadal, Iiraan la hadal, halkan la hadal, haddii la rabo xisaabta dhiib, wax walba markaasa saakay meeshaasuu maray. haddaba markaan idintusoo wararkii ugu dambeeyay sheekadaa laga qoray, waxaa leeyahay markab qaada gaaska oo ay Qatar leedahay ayaa ka gudbay marinbiyoodka Hormuz, waana markii ugu horreysay markab noocana oo Qatar leedahay uu ka gudbo halkaas tan iyo markii dagaalka uu ka dhex qarxay Iiraan iyo Maraykanka. haddaba bayaan rasmiya oo la soo saaray ayaa lagu sheegay sida ay qortay shirkad laga leeyahay dalka Qatar in markaasi uu ka soo dhaqaaqay markabkaas
dekadaha qatar dekada la yidhaahdo ra'sul lavan waxaana la sheegay in xamuulkii uu waday uu ku dejinayo dekada la yidhaahdo qaasim oo ku taala dalka bakistan marka waa la rafaadsan yahay meesha aan u fiirso dagaalka maalinkuu bilowday ilaa hadda kuwaydan wax ka sheegayna laakiin qatar noo ujeedaan laakiin qatar iyadoo dhowr markaboo kaloo badeeca iyo waxbaa u maraaleen gaaska iyo waxa kan dee waa halis hal mar haddii wax lagu dhufto waa gubanayaan maaha marka cabsiyaa ka jirta marka markabkii ugu horreeyey ee gaas qaada ayaa halkaa maanta u gudbay dowladda maaragtay qatar marka warkaas isaguna halkaasu maraa wararka kale ee dhinaca dhiilada wata ama colaada wata ee hormus ka imaanaya waxaa ka mid ah iiraan way dhaaratay dhaartan de waa iska socotaa maanta oo dhan waa laysu hanjabayaa taraama hanjabay iiraan hanjabtay taas nolol maalmeedkay ka mid tahay laakiin tan waxaa lee xoogaa way ka duwan tahay fariinta ay maraykanka u dirtay waxay tahay maraykanow mar kale haddaad isku daydo inaad dhibaatayso maraakiibteenna xamuulka ee baddaas maraya ogow annaguna waxaanu toos u garaaci doonaa meelaha saldhigyada kuwa ay gobolka aad joogtid macnaheeda xabad joojid ma jirto waaye mar haddii gantaalkii bilowdo oo jugta la iska geliyo wax kale ma jiraan marka digniintaas ayaa saakay ay soo saareen nimankii iiraaniyiinta ah haddaba aan idintusoo wararkii ugu dambeeyey aljaziira ayaa qortay iiraan waxay soo saartay digniin inay bartilmaameedsado haddii la isku dayo in la bartilmaameedsado maraakiibteeda waaweyn ee shidaalka qaada in ay markaa iyaduna ka jawaabi doonto oo ay markaa weerar qaadi doonto dhanka kale iyadoo la sugayo inay kasoo jawaabto qorshihii nabadda ee washington ay sugaysay oysan weli soo jawaabin ayay hanjabaadan haddaba soo dirtay haddaba wararku waxay sheegayaan sida laga soo xigtay ciidamada badda ee taabacsan ilaalada kacaanka iiraan inay sheegeen inay ku jawaabi doonaan haddii dhibaato loo geysto oo la bartilmaameedsado maraakiibtooda shidaalka iyo maraakiibtooda kale ee ganacsiga iiraan ay leedahay inay iyaguna ku jawaabi doonaan weeraro xanuun badan oo ay ku qaadi doonaan saldhigyada iyo maraakiibta badda maraykanka ee ku sugan gobolka marka waxay leeyihiin maraakiibteena shidaalka iyo maraakiibta kale ganacsiga haddii wax dhibaato ay soo gaaraan oo mar kale la qabsado ama waa la dhibaateeyo waxaanu toos u weerari doonaa maraakiibta maraykanka ee gobolka jooga iyo saldhigyada uu gobolka ku leeyahy marka taa macnaheeda dadku waxay ku fasireen waxaa waaye xabad joojin ma jirto waay markaas meesha way ka baxaysaa xabad joojintii marka welina marka fariintii waa laga sugayaa wadahadalkii waa imaanaynaa iyo ma imaanayno iyo hindisihii waa kasoo jawaabnay weli waxay leeyihiin daraasadaan ku haynaa daraasadaas xalay waataa ka hadlayna shiinaha lala sugayaa odaga sida la leeyahay marka markuu shiinaha tago 14 ilaa 15 bishan ayaa marka shiinuhu leeyahay anaa idin heshiisiinayay kaale isagoo markaa tabcaan oo tegi doona halkaas marka iska daba wareeg maraykanka hore maxay cadaadis ku saarayaan waxay rabaan intuusan shiinaha odaga aadin inay maaragtay nimankan kasoo jawaabaan oo wadahadalkii isagoo socda uu tago shiinaha uu yidhaahdo nimankaa wadahadalaa noo socda marka sheekadaasu halkaasay maraysaa wararkaas ayaa ugu waaweynaa warka kale waxay saale maanta aan idiin hayo wuxuu yahay israa'iil wax kasta ciidankeeda waa lagu arkay waataan shalay ka sheekeynaynay ciidamada cirka qaar ka mid ah inay u basaasayeen iiraan barnaamijyadeena ku jirtay waa dhagaysateen hadda wixii waa layskala soo gudbay waxaa la leeyahay saldhigii maaragtay makhaasiinadii hubka ciidanku lahaa ayaaba la bilile qaysaraale waa la qaadanaaba xaggee la geynaa lama yaqaano qaarna waxaa laga iibinayaa waxaa la dilay oo la dagaalamaya sida xisbullah iyo qolooyinkan iyo waxaasaa laga gadayaa reer gaza iyo qaarna yahuudda dhexdeeda ishubaynaysaba marka dambe iyaga dhexdooda nagta iska saaray sheekadii marka way xumaatay hub fara badanaa laga waayey meeshii
ay ku jireen oo sanduuq maartay makhaasiinadii lagu kaydinayo hub fara badan lagala baxay haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay sheekada laga qoray guutooyin ayaa maartay ciidamada ka tirsan ayaa wax bilileqaystay waxaana la sheegay inaan la garanayn ilaa hadda hub la xaday oo ciidamada Israa'iil dhexdooda markaa laga xaday haddaba wararku waxay sheegayaan hubka la xaday inta nooc uu yahay oo ilaa hadda la soo saaray wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan ilaa 30,000 oo rasaas ah in markaa lagala baxay saldhigga la yiraahdo Sidee Tiimaan oo ku yaala dhanka koonfurta waxaa soo kale la xaday 70,000 oo rasaas ah oo iyaguna laga qaatay saldhigga militariga ee ku yaala waqooyiga Joolaan oo markaa ay xooga ku haysato Israa'iil iyadoo sidoo kalena la sheegay in marka la isku daro 100,000 oo rasaas halka ay ku maqan tahay dhanka kale waxa iyana maqan qaybo kamid ah qoryaha baastooladaha iyo sidoo kale qoryaha halista ee sawaariiqda ee markaa garabka laga gano waxa sidoo kale la waayay hoobiyayaal iyo sidoo kale hanaanka difaaca horumarsan qoryaha culus iyo boobayaasha darandooriga u dhaca iyo waliba qalabka habeenkii wax lagu arko oo ay ciidamadu isticmaalaan intaasoo alaabood ayaa laga xaday oo markaa malaayiin dollar ku fadhida sida la sheegay yaa qaatay ma naqaano alle marka dowladii Israa'iil ahayd dhexdeedii laga dhax kaluumaysanay dhanka waqooyiga saldhigyada ku yaala wixii laga xaday kulli Xisbullah dhankeeda galeena lagu leeyahay dhankaas loo xaday Xisbullah lacag keensanaysa hadda Iiraan iyo waxaasi hadda kama gaaraan meelo badan la xiray ayaga laga gadanayaa nimanku waa niman naf haysa marka sheekadan marka waxa leeyahay waa sheeko cajiiba oo hadda soo korortay marka iyagu dhexdooda marka cidii hawlaha ku lugta lahayd ayaa baaritaan lagu hayaa oo la baaraya haddaba qaybtan war hadda soo dhacay wuxuu leeyahay buuq fara badan ayaa ka jira gudaha dalka Ciraaq siyaasiyiinta iyo ragga waaweyn iyo jabhadaha mucaaradka iyo awlaadii Iiraan kulli kadib markii ay soo baxeen xoga sheegaya dhulka saxaraha ee Ciraaq in saldhig qarsoodiya Israa'iil ay ka samaysatay u fiirsada saxaraha Ciraaq ayay waxay ka samaysatay Israa'iil saldhig qarsoodi ah saldhigaas maxay ugu tala gashay waxay ugu tala gashay lagu leeyahay Iiraan dagaalkeeda haddii diyaarad ay leedahay nagta laga soo saaro duuliyo soo dhaco inay hawsha qayb ka qaataan oo caawimaad sameeyaan oo hawlgalladaas waa meel ku dhow Iiraan xuduudkeeda Ciraaqana saldhiga marka ka dambeysay marka dawladda Ciraaq ayaa wax ka ogaala leeyahay sheekadan iyo Mareykanka Ciraaq degan ayaa iyagu nimanka Israa'iiliyiinta dhulka iska cidlada bacaadka ka samaysta saldhigeeda hadda marka waxaa marka sheekadii la soo ogaaday kadibna nimankii marka waxay leeyihiin awlaadii Iiraan nimanka sababta loogu ogolaaday dhulkeena qayb ka mid ah inay saldhig ka qaataan maxay dawladii hore oo hadda doorashooyinkii wixii looga adkaaday ayaa hawsha ka mas'uulayd marka hadda